Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada dhaqankaab waa sheekadii dhallaan. Waxaa meel ku wada noolaa xayawaano aad u tiro badan. Waxaa xayawaanada ka mid ahaa maroodi, kaasoo haystay dhal yar ama beebi yar. Maroodiga weyn maalin kasta waxa uu dhashiisa yar uga sheekeeyaa yaxaas. Waxa uu ku yidhaahdaa haddaad keligaa cidla marto waxaa ku cunaya yaxaaska. Waxa uu cabsiinayay si aanu keligii cidla u marin oo aanu u ambanin. Maalin maalmaha ka mida maroodigii dhashaha waxa uu ku fikiray inuu doono waxa uu yahay yaxaaskan lagu cabsiinayaa. Waxa uu yidhi maanta waxaan ka warkeenayaa yaxaaska. Maroodigii yaraa waxa uu soo baxay isagoo ah keligii, isagoo baadhaya sababta uu yaxaasku u cunayo una ugaadhsanayo xayawaanada kale iyo inuu soo barto yaxaaskan la sheegayo. Waxa ay jidka iskaga hor yimaadeen geri. Maroodigii yaraa waxa uu ku yidhi ma ii sheegi kartaa sababta uu yaxaasku inoo cunayo iyo waxa uu yahay yaxaasku. Gerigii waxa uu ku yidhi may ha i weydiin aniga su-aashaa. Waxa haddana ka soo horbaxday goroyo. Goroyadii waxa uu ku yidhi ma ii sheegi kartaa yaxaasku waxa uu yahay iyo waxa uu cuno xayawaanada kale. Goroyadii sidii si lagayay ugu jawaabtay maya ha i weydiin aniga su-aashaa. Haddana waxa uu tegay jeer. Waxa uu ku yidhi jeertii ma ii sheegi kartaa yaxaaska iyo waxa uu yahay yaxaasku. Jeertii waxay ku tidhi maya ma geli karo yaxaaska iyo afaarihiisa toonna. Waxa uu tegay maroodigii dhashahaa shimbir fuushan geed dhakadii. Waxa uu ku yidhi ma ii sheegi kartaa yaxaaska iyo waxa uu yahay. Shimbirtii waxay sidoo kale ku tidhi iyaduna maya yaxaaska iyo afaarihiisa hay gelin. Maroodigii dhashaha wuu iska socday. Waxa uu baadhayaa intaa yaxaaska iyo waxa uu yahay. Waxa uu tegay oo afka ka galay yaxaaskii uu baadhayay. Waxa uu tegay yaxaaskii isagoo aan garanayn waxaan uu la joogaa inuu yahay yaxaaskii lagu cabsin jiray. Waxa uu ku yidhi yaxaaskii ma ii sheegi kartaa sababta uu yaxaasku u cuno xayawaanada kale iyo waxa uu yahay yaxaasku. Yaxaaskii oo yaaban ayaa ku yidhi yaxaasku waxba ma cuno, xayawaanada kalena ma cuno, waa la saaxiib. Waxaa lagu sheegay been. Yaxaaska oo doonaya inuu ugaadhsado maroodigan dhashaa ee isaga yimi ayaa ku soo dhowaaday. Yaxaaskii waxa uu qabsaday maroodigii yaraa dhashahaa oo uu qaniinay. Maroodigii waxa uu kaga baxsaday naflacaarid iyo dirqi. Isaga oo dhaawaca ayaa u cararay. Waa sheeko wacyigelina. Waxaa laynaga baahan yahay inaynu ilaalino carruurta, waayo carruurtu ma laha caqli ku filan, mana garan karaan khatarta soo waajahaysa. Qof kasta waxay mas-uuliyad ka saaran tahay inuu ilaaliyo dhallaanka. Fadlan subscribe saar si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada cusub. Mahadsanid.